wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa deeq qalab kala duwan oo loogu talagalay tayeynta telefishinka qaranka waxa uu ka gudoomay hay'adda DAI iyadoo oo deeqdaasi qalabka ay bixisay hay'adda USAID munaasabadii gudoonka deeqdaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdilrashiid Jibriil Yuusuf agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta ayaa tilmaamay in deeqdan qalabka oo ka kooban kamarado iyo agab kale loogu talagalay sidii kor loogu qaadi lahaa tayada wax soo saar ee telefishinka qaranka isla markaasina hay'addaasi USAID deeqaha kala duwan ee ay u fiirsay wasaaradda warfaafintu aanay tani ahayn tii ugu horeysay balse ay marar hore oo badanna horumarka wasaaradda kaalin lixaad ka qaadatay iyada oo dhismayaal suudiyayaal iyo waxyaabo kalena ay ka fulisay wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdilrashiid Jibriil Yuusuf ayaa isaguna ku amaanay hay'addaasi deeqdaasi ay u fiirsay iyo hay'adda kale ee ay soo marisay ee loo yaqaan DAI waxaan xafladan u joognaa waxa weeyaan la wareegida qalabka electroniga taasoo ka qayb qaadan doonta baahinta wasaaradda warfaafinta barnaamijyada iyo wararka iyo diyaarintoodaba taas waxa uga caawin doonta baahi weyn oo wasaaraddu runtii u qabtay tan oo ka mid ahayd mashruucii DAI qaybta mashruucii USAID qaybta DAI ay noo fulinaysay oo qaybo hore oo badanna aynu hore u soo galay oo aynu hore u soo furnay gabagabadii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu kaga mahad celiyay deeqdaasi isagoo oo geesta kalena tilmaamay in ay maamulka wasaaraddu ka wadaan xarunta wasaaradda warfaafinta hawlo la xiriira si loo dardargeliyo shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa hadaladiisii ka mid ahaa sida ay mas'uuliyiinta iga horeysay sheegtay hay'addaasi USAID iyo hay'addan DAI waxay maanta inoo joogaan inaynu ka gudoono kaalmo ay u geysanayaan kor u qaadida awoodda baahineed ee wasaaradda warfaafinta waxayna siiyeen qalab inkastoo dadka qaar oran karaan waa ay tiro yar yihiin haddana inagu xabad iyo laba iyo saddex iyo kolba wixii aynu u baahannahay wixii naga soo gaadha waynu ku mahadnaqaynaa oo qofka is yiraahday USAID intan way ka awood badnayd ama intan ka kordhisanaa ma gardarra waynu ka sugaynaa insha Allah waxaanu anaguna diyaar u nahay inaanu qalabkaasi oo hay'adda iyo cid walba u sheegaynaa qalabkaasi inuu noqon doono qalab ujeedadii loo keenay halkan iyo ujeedada kaalmada loogu bixiyay sideeda loogu guto qalab loogu shaqeeyo qaranka Soomaaliland qalab loogu shaqeeyo warbaahinta dawliga ah ee Soomaaliland qalab shaqadii loogu talagalay lagu guto oo lagu qabto waxaanu ku jirnay oo aan intan raacinayaa maalmahanba dib u eegisaanu ku sameynaynay kartida shaqaalaha wasaaradda warfaafinta aqoonta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta xaqu-sinaanshaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dib u qiimeyn iyo dib u habeyn lagu sameynayay oo aanu guddi u magacawnay guddidaasina ay mas'uuliyiinta wasaaradda kuwa ugu rag dooraho ka mid ay ku jireen oo agaasimaha guud iyo maarayaha TV-ga agaasimaha idaacadda agaasimaha Dawan Group ee jaraa'idka agaasimaha waaxda farsamada ay ahaayeen alxamdulillah way soo dhameeyeen liisaska waxa ka soo baxay waxoogaa khaladaad oo fara badan oo waxa ku jira shaqaale dhoofayba oo aan dalka joogin waxa ku jira qaar dhintayba oo haddana mushahar qaadanayay waxa ku jira qaar mashaqaysta ah oo gunno iyo lacagna la siinayay oo waliba ka mushahar iyo shaqo gunno badnaa qaar shaqeeya oo 24 saacadoodba meeshan jooga shaqaalaha si fiican bay u soo kala sooceen qaar badan baa shaqaalaha dheeraadka ku ah wasaaradana waa ay sheegeen kuwa shaqo u baahan in loo abuurana way sheegeen annagu waxaan u sheegaynaa dadka haddii aad duldul maqashaan
dadka marka sidan oo kale wax loo saxayo qaar baa dhibsada kuwa dhibsada xantooduna way dheeraysaa kuwa cadaaladda loo sameeyo ee tirada badanna aamuskooda ayaa sababaynaya had iyo jeer xanta iyo beentu ka dheereeyaan waxaanu se u jeednaa inaanu raali gelino shaqada iyo shaqaalaha iyo qofka shaqaynaya